السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا دمان أخيارتي كحرن يوتيوب channel كيجا فتحين official ومركلته يعني وأفتح حسين يسول عبشة كله يكون تدم أو حيسره برامج كبرامج ده هو أكيد وين هاي كل بهدا أركتين إن جنبك صفرستي وحبان وضع وحيهين باع كمان هرد عدونا مركو هراء محبة صلاتي كالقعيلك أن كلا قدونا waxaan idin rajeynayaa inaad caafimaad qabtiin insha Allah anigana waa caafimaad qabaa dhamaan dadka kale tan qofka xanuunsan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha caafiyo anagana Ilaahay caafimaadka ha noo siyaadiyo iyo mataqaanaaye barwaaqada aan ku jirno intii aanan caafimaad haysanin Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha siiyo intaas markaan ka soo gudbo mid kale oo laga tagi karin baa jira barnaamijka markii la bilaabayo iyo markii la xiraayo labadaba taasi oo please subscribe isar ama fadlan soo booqo YouTube channel-kayga calaamada guduudan taabo kadib alamka furo anigana faa'iido ii tahay adigana waad ila socon doontaa dhinac kastaba ka caafimaad ahaan ka barnaamij ahaan ka wax cusub ahaan intaba intaas markii laga soo gudbo subscribe sar hadii lagu yiraahdo laba wax oo kale saddex wax kale oo la socotaa jirta waa comment iyo like iyo share intana qof subscribe-ka gartay ma garan weynaayo fadlan subscribe-ka waa barta gaduudan taabo igu soo bir igana mid noqo markaa subscribe-ka asaartidna gambaleelka furo si aad u heshid muuqaaladayda markaas aan soo geliyo anigana ay igu noqoto dhiirigelin adigana aad iga faa'iidid waxyaalaha markaas aan hayo intaas ka bacdi markaan barnaamijka aan ka hadlayo aan guda galo waxaan guda galayaa oo mataqaanaa ka hadlayaa dhacdo habeen hore ka dhacday dalkaas iyo ariga Mareykanka gabar yar oo hooyo ah oo laga qaatay cunug yar iyada dhashay oo gabar ah 3 biloodna jirtay dareen murugalahu ahaay qof kasta oo muslim ana uu fahmi karaa ama qof kasta oo waarid noqday run ahaantii waxay ku kala duwan tahay markaad waarid tahay iyo markaad waarid ahayn damqashada dareemaysa markaad tahay qof waarid ama aaba ama hooyo aad tahay qofka kale tan dameer ahaan ama mataqaanay uu ka danqanaya gabadha Soomaalida dib ka soo gaaray laakiin waa loo kala nugul yahay anigoo ka hadlay dareenkayga waxay aad ii soo jiidatay dhibaatada gabadhaas haysata waxa si laga mataqaanay gaabsadaan ah ama lama ilaabaan ah gacan uga geystay Cabdiraxmaan Xaaji Dabacasar masaxanahay Cabdiraxmaan inuu magaciisa saxda ay yahay Cabdiraxmaan baan jeclahay Dabacaseer bay dadkan ugu yeeraan waa Dabacaseer weeyaan Dabacaseer marka barnaamij buu soo galiyay live uu ka soo galay goobta wax ugu yeero ma sheegi karo kolba ma gabadha u yeeratay mise dad kale soo wargeliyay live-ka meesha uu ka soo galay wuxuu ka caawiyay gabadhaas ayta waxyaalo badan wuxuuna ka caawin doonaa hadii maxkamad xataa la aado waxyaalo badan waxa cadeyn buuxda ku filan cunugteeda si ay u qurux badan tahay 3 bilood ay cunugta jirtaa waxaan u muuqataa ilmaha ma sha Allah 12 bilood ama sanadka jiro hooyo ilmaheeda ay saas u qurux badan yihiin run ahaantii lama dhigi karo waa qof dayacay barnaamijka guntiga gabadhiba wuxuu ku socdaa oo ku saabsan yahay ragga Soomaaliyeed dhamaantood gabadhaas nin baa cunugtaas ka dhalay sababta uu uga tagay oo ilmihiisa uu dayacayna ma garan karo waxa kale too meesha si dheer in la yiri waxay la joogtay gabadha reer family ah familkeeda ah guri meesha deganeen aan jeclahay reerkii familka ahaa ayaa waxa la yiri u soo saaray dibadda ka dambana booliska u wacay intaas markii laga tago haddana Dabacaseer markuu soo galay live-kii waxay sameeyeen inay soo wacaan ay ku dhahaan ka saar live-ka ka saar fiidiyoyaasha ka duubtay gabadhaas waa qof waalan oo maskaxda ka jiran mataqaanay live naad soo galinaysid gabadhaas ka bixi asxaabi waxay raali ahaada daaq qaraac maqashiin guriga mataqaanaa daaqadiisa dad baa banaanka taagan baa umaleynaya waxba macnaa ma sameynayso war si fiican u maqashiin maahan intaas markii laga imaado reerka waxay dhaheen gabadhan ka bixi waxay diidanayeen in la arko muuqaalka gabadha ama la caawiyo ama ay hesho garab bilaadanimo iyo mid Soomaalinimo iyo mid Islaamnimo Dabacaseer baa ku yiri ma bixinay marka saaray igala tag qof kasta muuqaalada Dabacaseer daawada uu arki karaa ama uu maqli karaa gabar baa telefoon u dhiibaysa oo telefoonkaana laga soo wacay amal dhahayso waxaan soo wacay dad family baan nahay gabadhaan way waxalan tahay
even haddaad family tahay aad ku ogtahay gabadhan xanuun ay xanuunsan tahay kolba waalid toosa kama muuqanin laga yaabaa inay stress qaaday laga yaabaa mataqaanaa inay weysay markay uurka lahayd ama walaca ahayd ama xaamilada ahayd ama ay umusha ahayd inay weydo qof garab istaago oo caawiyo oo noloshaas markaas ka saacideeyo si kastaba ha noqotay qofka dumarka ah waqtiyaalo waxay jirto ee u baahan tahay in la garab siiyo lana dhiirigeliyo waqtiyaashaas oo kamid ah haddii ay gabadha walac tahay oo kaleeto mataqaanaa dadka qaar baa walac si xun oo la xanuunsado haddii ay xaamilo tahayna laftirkeeda waxay stress ka qaadaysaa foosha maxaa kala kulmi doontaa ilmahaaga muxuu noqon doonaa intaasoo bilood baa uur soo lahayd maadoo caafimaad qabaa dhalan doontaa oo dhali doontaa mise ilmahaaga ayagoo caafimaad qabay dhalan doonaan intaas oo wareer ah qofka hooyada kaligeed haysto haddii ay weydo qof ku garab siiya ama ku garab istaago run ahaantii waxay la kulmaysaa dhibaato badan waxaana ka imaan karta waali horta gabadha gabar waalan ma ahayn qof waxay ahayd waxaa si dareen mataqaanaa gooni ah leh ilmihii oo la qaadanaya askarta u taagan yihiin inay u qasta caano waxaa dareemi kara qofka hooyo ah ilmahaaga waa lagaa qaadanayaa markii la yirina say u fafakanaysa dharka dhan ay iskaga siibtay taas laftirkeeda dad baa ku tilmaamay committee maraan akhriyay inay waalan tahay naagtan inay iska qosleyso inay mataqaanaa ayada laftirkeeda qof maskaxda ka xanuunsan tahay qofka xanuunka horta ilaahay baa keena caafimaadkana ilaahay baa bixiya hadday xanuunsan tahay waxay leedahay in loo dhimriyo oo loo mataqaanaa maskaxda loo dejiyo laakiin ma aha in lagu digto caafimaadka adiga ah haysatid aa committee kusoo qoraysidna waxaa laga yaabaa inaa weysid beri dadka badankood ama curyaanka ama waalan ama xanuunsan 100% ma aha wax ay ku dhasheen waxa waaye wax iyagoo weyn ku dhacay qofba isagoo caafimaad qabo cagiis ku socdo ayaa cagi ka go-ayaan ama gaari ku dhacayaan ama cudur ooga dhacayaan ama wax kale ooga dhacayaan qofba asigoo fiican oo intaasoo ciyaal leh waalan kara marka caafimaadka waa shay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala bixiya mana aha wax lagu faano oo qofka maanta inta lagu digto oo la dhaho way xanuunsan tahay mid kalena ku darso waxaa ogaataa hadday xanuunsan tahay ee dharka dhigato waxaa waaye hooyo runtii dareenka hooyanimadana waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryayaa gabar kasteeto oo muuqaalkayga daawato hadday hooyo tahayna inuu ilaahay ilmeheeda baare ooga dhiga haddaynan hooyo weli noqonin ilaahay awlaad saalaxa uu siiyo waxaa ogaan doontaa qofka markuu waalan yahay ama markuu xanuunsan yahay ilmihiisa ma dayacaayo taasna waa dareen uu ilaahi subxaana wa tacaala abuuro hooyada bas ahaana uu ku abuuran yahay dareenkaas ragga soomaaliyeed marka hal baan leeyahay halkaan leeyahay waxay tahay gabdho yaryar oo mataqaana aan u qalmin inay nolosha keligood noolaadaan ayaa 3 cunug 4 cunug inta laga dhalo ayaa la furayaa markii gabadhaas la furo waxaa laga yaabaa in waxyaalo raqiis ah oo mataqaanaa macno bas aan sii lahayn oo basiid ah lagu kala tago oo gabadhaas ku furo waxaa dhacda marka inay ilmaha gabadha haddii tirada waa haysanaya oo dhaho biilku kuma siinaayo taasna ay qadarayso gabadha inay ilmaheeda ay wareejiso ayadoo laakiin u baahan ilmaheeda inay haysato laakiin aana awoodin qaarkood hadday ilmihiina keen ayna dhihinba ilmihiina u daayaan biilna ayna siinin ilmahaas laftirkooda waxay ku korayaan maskax kaleeto nolol adayg ayna xamili karin qofka biniaadanka ana wuxuu koraa ama maskaxdiisa ay kortaa inta uu yaryahay hadduu si fiican u koro noloshiisa dambe waxba kama halaabayaan waxay noqonaysaa qof nolosha dhisan oo laga soo dhisay markuu yaraa waxaa arkaysaa qaar ilmaha laga qaatay oo hooyooyin oo iska oynaaya lagu dhahay ilmihiina ma arki kartiin qaar ayagoo umla naaska siinaya laga qaatay qaar mataqaanaaye inta ilmaha laga qaatay magaca laga bedelayo lagu dhahay cunugaas kee waaye mataqaanaa adiga maada dhalin ama cunuga aan kuu dhalay aad ii dhashay wuu dhintay ama wuu saqiiray run ahaantii dhacdaas wuu saqiiray waxaan ku haynaa wiil weyn oo isagoo dhowr iyo intaas sano jiro la helay hooyadiisna ay aabihiis ku wargelisay inay gabar dhashay gabadhina ay ka saqiirtay intaas ka dambina aabihii uu noqday dadka dowladda markay burburtay iska aaday wadamadaas galbeedka ayaantii dambe ay dhacday in lagu yiri maxaad niyo nin xun baa tahay maxaad wiilkaagii usoo xiriirin weyday u booqan weyday ama wiilkaaga aaga warqab weyday soo ma ogid in wiil weyn uu kuu joogo taas waxay imaanaysaa waaridka xumaanta intaas la eg inay kala gaarto waxaa weeyaan ilmahaaga noloshiisa ku ciyaartay
haddii aa hooyo tahay haddii aabba aa tahay wax kastata way dhacaan calafka u dhamaadaa labada qofna ilaahay iskama dul saarin ilaa ay xaawiye aadan ayuu mataqaanaaye furniinka iyo masayrka intaba ay soo jireen hadduu furniin uu imaado waxaa leedihiin inaa ilmahaas wada dhaqaaleysatiin ka fikirtiin mustaqbalkooda iyo noloshooda laakiin maahan inuu qofka kale ku xisdo teeda kale waxaa waaye biilka ma naagtaa siisiin mise ilmaha su-aala aniga keligay markasta isweydiiye waaye because gabar baa la furaa iyadoo intaasoo lacaga qaadato marka dambe waxaa laleeyahay 20,000 ama 30,000 ama mataqaanaa 15,000 oo $150 ama $200 ilmihii guri kara degan caafimaad u baahan waxbarasho u baahan nolosha oo dhan u baahan in lagu dhaho kaligeed ka badan ma haye marka horeeto waxaa laga yaabaa inaan 200 kun bixin jirto oo $2,000 dhigato gabadha kaligeed ma cuni jirto lacagta mise waxaad ku dhiirigelisay inay gabadha iyada bas ah ayaad lacagtaas siin jirtay oo mataqaanaa inay isku dhaashto ee ilmahaaga nolol kama aadan lahayn ilmahaaga inaad dhistid baa u baahan tahay dabacaseer wuxuu gabadha ugu hiiliyey calankaas buluuga ah wuxuu ugu hiiliyey midabkaas maariinka ah wuxuu ugu danqaday diintaas islaamka iyo xijaabka aan qabno iyo bini'aadanimada run ahaantii waxaan anaga dhan ku hoos nool nahay calankaas waxaan wax ku nahayna waa asaga hoostiisaan darajo ku leenahay soomaali dhib kasta isku qabto laakiin markay dhibaato mataqaanaa xasaasi ah ama run ah ay imaado waxaa lagama maarmaan ah qof kasteetaba inuu u danqado damiirka iyo dadnimada Soomaaliyeed una ka dhiidiyo calankanagana waxaan leeyahay insha Allah cizi iyo sharaf ku noolow xaaji dabacaseerna waxaan leeyahay dhibka iyo ceebta ay sameeyeen nimanka Soomaaliyeed adiga tirtirtay adiga maxaan ku dhahay madaxaaga aan ku masaxnaan ku ilownay calankaasna waxaan leeyahay calanka Soomaaliyeed oo cashiga ka noor calanka Soomaaliyeed oo cirshiga ka noor cirkaadu weegtahay rabbi yow laga cabsado cirkaadu weegtahay rabbi yow laga cabsado عدود Soomaali rabbi يوم القرى كيان قابلك يا قرون كالو قلب قولانا قصار برابر بطرنا ولي سائنا تبع سيرنا وحان ليا keep going أدير هوري أسرعو رنا هانتي دad badan baa dhaha waalin yahay dabac seer aniga horta weligay alahay waxa cab caleeg qof weyn oo waaridkaaga oo kala ah ina comment xun u reebtid waxa arkaysaa dhalinyarada TikTok ama Facebook-yada isticmaasho qof weyn oo waaridkooda kala ah inay hooyada waxaas aabaha waxaas waa hebel waa waalin yahay dhahan fadlan waxa fiican inaad ku ababtid marka ugu horeyso guri ixtiraamka laga baro aana lagu baro qiimeynta uu leeyahay waaridka laguna baro midka yar iyo midka weyn labadaba si loo xishmeeyo run ahaantii anigoo arkaayo qofka inuu waxyaalo qaldan ku hadlayo haddana waxaan aad uga sii xumaadaa qof dhalinyaro ah oo caynaayo waaridkiis qof da'diisa ama qiyaasatan dhali karo waa wax laga xumaado waxaan leeyahay dhamaan Soomaali Maxamed ha iska dhaafaan ku xadgudubka dadka lagu xadgudbaayo qalbi jabka dadka loo geysanayo walaashayna waxaan leeyahay cunugtaada Ilaahay ku soo celiyo gabar Soomaali ah oo habareer bay u taaliiriya lagu wareejiyay inta dambana waxaan filaynaa inuu khayr isku raaco khayr iyo bashbash iyo mataqaanaa iyo baraaro ay ku dhamaato waanigoo ah walaashin Fatxi Xuseen war Ilaahay ii dhiib laakiin wariyo wali ma gaarin bartiisa markaan soo fariistay halkan wuu igu soo duxaabay Ilaahay amarkiis please subscribe YouTube channelkayga like comment share insha Allah dhammaanteena Ilaahay naga yeelo kuwa khayrka isku bahaysto shartana iska bahaysto oo mataqaanaa meel qura ugu soo wada jeesto ilmaha Soomaalida